assalaamu calaykum. Dadkoo dhammi waxay leeyihiin hadafyo iyo riyooyin, balse in yar oo ka mid ah dadka ayaa ciirsada oo daba socda hadafyadooda. Sababta ugu weyn aynan dad badani u ciirsan riyooyinkoodu waa iyagoon rumaysnayn inay suurtagal yihiin. Qofka bini'aadamka ah waxay maskaxdiisu dhiiragelisaa oo keliya markii uu rumaysan yahay in dadaaladiisu ay u miri dhali doonaan, uuna heli doono natiijada uu rabo. Haddii maskaxdaadu aynan hubin in ka shaqaynta riyooyinkaagu ay natiijo keeni doonaan iyo in kale, wax dhiiragelin ah kuma siin doonto. Tanna waa sababta ay aadka ugu muhiimka tahay inaad barato sida loo aamino inay riyooyinkaagu suurtagal yihiin. Markaad bilowdo inaad aaminto in riyooyinkaagu suurtagal yihiin, waxaad is arki doontaa adigoo si aan caadi ahayn ugu dhiiragashan inaad gaarto riyooyinkaaga. Taasina waxay sababi doontaa inaad gaarto riyooyinkaaga. Haddaba sidee loo aaminaa in riyooyinkaagu ay suurtagal yihiin? Su'aasha u qalanta $1 milyan waxay tahay, siduu qof u aamini karaa riyooyinkiisa? Waxaa jira 2 tallaabo oo haddii aad samayso aad si toos ah u aamini doonto in riyooyinkaagu suurtagal yihiin. Tallaabada koowaad: hor istaag muraayad aad iska wada arki karto. Intaa kadibna dheh ereyo aad ku caddaynayso inay riyooyinkaagu suurtagal yihiin oo aad gaari karto, sida siday doonto ha u adkaato, siday doonto ha u qadharnaato, waan gaarayaa waxa aan rabo, ama siday doontaba ha ahaatee waan ku guulaysanayaa. Markaad naftaada weji ka weji u wajahdo ee aad si qasab ah ugu sheegto waxaad rabto inaad gaadho, wax kastoo riyadaadu tahayba, istaag oo isku eg muraayad horteeda oo qir inaad gaarayso waxaad rabto, waxaad doontaba aad wajahdide. Tallaabada labaad: maskaxdaadu si ay u rumaysato inaad gaari karto yoolkaagu waa inaad samaysaa ficil. Tusaale fudud: haddii aad doonayso inaad noqoto qoraa caan ah, buuggii uu soo saarana isbuucaan gaarin suuqa yaalin oo hore laga kala dafo, samay tusaalooyinkan oo kale. Qaad tallaabooyin dhab ah, sida inaad la kulanto dad qorayaal caan ah oo ka mid ah qorayaasha ugu waaweyn, isla markaa adigoo juhdi ku bixinaya ugu yaraan inaad wax ka soo faa'iido oo aad wax ka soo fahanto. Haddii maalin kastaba saacad aad u hurto riyadaadana, isla markaana aad samayso shaqo kasta oo kaa caawinaysa inaad gaarto riyadaada, maskaxdaadu waxay bilaabi doontaa inay si dhab ah u rumaysato riyadaada. Iminka haddii aad hesho dad kuugu taageera oo kuugu dhiirageliya inaad horey ugu socoto, isla markaana kuu sheega inaad gaari karto, aaminsanaanta aad aaminsan tahay inaad gaari karto yoolkaagu wuu sii xoogaysan doonaa. Saacad walba oo aad ku lumiso gaaridda hadafkaaga, maalin walba oo aad ka shaqayso gaaridda riyadaadu, mar kastoo aad ku tiraahdo naftaada inaad gaari karto riyooyinkaaga, mar walba oo aad maqasho hadallo kuu sheegaya inaad gaari karto yoolkaagu, waxay sii xoojinayaan inaad aaminto inaad gaari karto riyooyinkaaga. Markaad si adag u rumaysato riyooyinkaagana, ma jiro wax awood u yeelan doona inuu ku joojiyo.